qarxiyo talantaali ah oo loola beegsaday saldhig ku yaala magaalada Laascaanood dhinaciisa koonfureed ee xaafadda Daami ayaa wax dhaawac ka soo gaaray askari isagoo halkaasi ilaalo ku ahaa kaasi oo loo qaaday isbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood inta maamulka gobolka ugu horeeya barasaabka gobolka Sool iyo waliba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sool ayaa dhinacooda ka hadlay qaraxan iyo nooca uu ahaa kooxdii shadaadiinta hay oo argagixisadahay saldhiggii koonfurta degmada Laascaanood weerar ku soo qaaday caawa laba bubbay ku soo tuureen ilaahay weerarkoodii waa fashiliyay oo nasiib darro ku dhacday si uu rabay ilaahay kama dhigin iyagoo ku weeraraya bomba gacmeed ilaa kulay laba bomba lagu soo tuuray kulay dhaawac uu hal askari falal badan oo istaba joogiyaaba ka dhacay gobolka Soomaaliya ogtahay waxaanad mudaan midba mid lagu masaxayo laakiin problemka maanta haysta caalamka ama dunida haysta geeska Afrikada ama Soomaaliya baa dhacdo problemka jira ee nimankaan isla garan kulay ayaa inta badan sameeya falalka noocan ah wada toddobaadkii ugu dambeeyay dadii Allah xiriir baa jirto falalkan loo soo xiray iyaga xaaladooda waxay ku dambeysay iyagu way xiray ilaa haddana adu farq loo iyo jilka loo gudbiyay waa jiraan qaran saldhig ku haynaana way jiraan kulli baaristaana loo saamaxaysan oo si hayno ilaa 90 days ban loo guliyay sharciyan falka dhacana dil buu hayo wada ogtahay oo markii lixaad ee qarax sidan oo kala ah oo bomba gacmeed ah lala beegsado saldhigan ku yaala wadnaha magaalada Laascaanood oo isagu ku yaala dhaxbartanka magaalada gudaheeda halkaasi oo horeyba ay dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaadhay askarta iyagoo halkaasi ilaalin jirtay falalka qaraxyada ah iyo dilka toogashada ah ee xilliyada salaadaha maghribka iyo cishaayiga ka fuulay magaalada Laascaanood ayaa iyagu ahaa in dhaweyto kuwa laga nastay marka laga reebo gudoomiyihii maxkamadda raxafaanka ee Allah u naxariistay isaguna bil ka hor lagu dilay gudaha magaalada Laascaanood xilli uu salaada maghrib ka soo baxay tiraba waa sarkaalkii 14aad ama 13aad ee dilkan oo kale loo geysto ee aan la garanayn cid allaaliya cidda ka dambeysay iyadoo ay jirto raacdeynta ay booliisku ku soo qabtaan qaar ka mid ah eedayaasha ay falkani ku soo duhmeen hase yeeshee kuwoodii ugu waaweynaa iyaga lagu soo qabtay agabkii iyo qalabkii ay wax ku qarxin jireen oo loo qaaday dhinaca Hargeysa isla markaana shir jaraa'id ku sheegeen amniga iyo waliba mas'uuliyiin ka socota maamulka Soomaaliland inay gacanta ku dhigeen dadkii soo yeegleelay qaraxyada talantaaliga ay horey uga dhici jiray magaalada ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn halka ay arintaasi ku dambeysay magaalada Laascaanood TV caalamiga iyo Universal TV Cabdi Qani Xasan Faarax magaalada Laascaanood